dhibaatada maanta na haysata Soomaaliya waa aqoon la'aan dadku waxay dhiseen darbi ma aysan dhisin dadkii oo adduunkana waxaa la dhisaa bani aadanka waxaa lagu dhisaa aqoon ubadkaadii markaad wax bartid ayuu adduunyada aakhira ku anfacayaa laakiin darbi la dhiso gaari la gado beer la sameeyo wax micno leh ma keenayso laakiin marka awlaadaadii aad diini iyo maadi isugu dartid kuwa ku anfaca adduunya iyo aakhiro sidaa daraaddeed waalidiinta ku nool degmada Wallaweyn dhammaan waxaan ka codsanayaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad inay ubadkooda wax baraan si aan kaga baxno jahliga si aan kaga baxno baahida ka jirta deegaanada Soomaaliyeed qaasatan koonfur galbeed markaan runta isu sheegno waa baahi aqooneed qofka markuu aqoon leeyahay ayuu isxakameyn karaa xumaanta uu samaynayo garan karaa samaynta waxaas wanaagsan uu markaas xasuusan karaa markaan si hoos idinla hadlo dadka reer Wallaweyn dhaqaalaha lagu bixiyo aqoonta waxay u arkaan qasaaro oo aniga hadda idinla hadlayo gudoomiye ku-xigeenka degmada Wallaweyn waxaan wax ku bartay oo dugsiga hoose dhexe ee Baarbe ilaa hadda qaaraanka waa laga qaadaa mana diidi karo waa ogolahay waa lay wacaa iskoolka la dayactiraa lacagtaas kugu qoran bixiya lay dhahaa meel al meesha ka keen waxaan ku qasbanaa inaan bixiyo sidaa daraaddeed dugsigan waxaa dhigatay in ka badan 900 oo arday haddii 900 oo arday ay 6 bilood bixiyaan oo min $5 calaa cunug waxay noqonaysaa in ka badan $4,500 $4,500 miyaysan noo dayactiri karin iskoolkeeni marka maalin walba inaan cid tuugno ama hay-ada aan tuugno ama annaga aan cid kale isku halayn waa laga fiican yahay waxaan idiin sheegayaa waxaan idinku dardaarinayaa inaan ubadkeenna wax barno waxbarashada aan ku dadaalno guri la dhisay wax ma taro guri la dhisay xoolo la tacbay waxaa macquul ah waxaad ilaalinaysa gadaashaada in lagu ciyaaro lagu tunto la dhibaateeyo balse awlaadda la dhisay ee yaqaana diini iyo maadi waxay xasuusanayaan waxaad bartay waxay mar walba qalbiga ku haynayaan waalidkayga si wanaagsan oo ugu barbaariyay sidaa daraaddeed mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaa idin leeyahay oo hambalyo xafladeennina kolley way sii socon doontaa cid walba waxay shaqaysteen maanta inta ayaa lagu ogaan doonaa abaalmarinada la bixinayo waxaa lagu bixiyaa cid walba waxay shaqaysatay abaalmarintu ma ahan dugsigaan imaan jiray buugaan qaadan jiray ma ahan laakiin sidii ay maskaxdaada u joogtay aad wax u baran jirtay ayaad maanta iskoolkan ka arki doontaa insha Allah dhammaan ka soo qaybgalayaasha waa idin salaamaya